Lionel Messi oo si rasmi ah ugu biiray kooxda Inter Miami. Jude Bellingham oo jebiyay rikoorka Jack Grealish ee ka dhigay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Xiddiga Lionel Messi ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Inter Miami ee ka ciyaarta horyaalka Mareykanka. Rajadii Barcelona ee saxiixa Lionel Messi ayaa si rasmi ah u soo dhamaatay iyadoo xiddiga reer Argentina uu ku biiray kooxda Inter Miami. Kooxda Inter Miami ayaa isku diyaarinaysa inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo xiddigan iyadoo saacadaha soo socda ay ku dhawaaqi doonto. Messi ayaa xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doona horyaalka Mareykanka kadib markii uu iska diiday kooxdiisii hore ee Barcelona iyo kooxda Al Hilal. Xiddiga reer Argentina ayaa haatan xirfadiisa ciyaareed ku sii wadan doona horyaalka Mareykanka kadib markii uu qalinka ku duugay heshiiska uu ugu biirayo kooxda Inter Miami. Jude Bellingham oo jebiyay rikoorka uu Jack Grealish ka dhigay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Borussia Dortmund ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Real Madrid isagoo noqday xiddiga reer England ee ugu qaalisan taariikhda suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Xiddiga Jude Bellingham ayaa Real Madrid ugu biiray lacag gaaraysa €115 milyan kadib markii uu ku biiray kooxda Real Madrid. Jude ayaa jebiyay rikoorka uu hore u dhigay xiddiga kooxda Manchester City Jack Grealish kaasi oo lacag rikoor ah ugu biiray kooxda Manchester City. Jack Grealish ayaa Manchester City ugu biiray lacag gaaraysa €100 milyan sanadkii 2021 isagoo kaga soo biiray kooxda Aston Villa. Xiddiga daafaca uga ciyaara Manchester United Harry Maguire ayaa ka mid ah xiddigaha reer England ee ugu qaalisan isaga oo €80 milyan ugu biiray kooxda Red Devils. Sidoo kale xiddiga Manchester United Jadon Sancho ayaa ku biiray Manchester United sanadkii 2021 waxaana uu ugu biiray lacag gaaraysa €73 milyan.